ma doonaysaa timo dheer oo dhabarka dhaafo dhulka gaaro haddana xariir ah maanta waxaan idinla wadaagayaa sirta aan u isticmaalno timaha aniga iyo gabdhahayga midaasoo haddii aad isticmaashid jilciso nafaqo yacni wax walba saliid aad uga maarmaysid inaa u raadisid timahaada si ay kuugu bixiyaan fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqato janalka Karin iyo Qurxin subscribe beelka on ka dhigo una sii share garay asxaabtaada comment qurux badan oo aad waxyaalaha wajiga lagu qurxiyo timaha lagu qurxiyo haddii aad u baahan tahay hoos noogu soo qor iyo wixii aragtid in laga soo hadlo biidnillaahi alkariim alaabtan waa nafaqo waa jilciso waxa waaye muxuu ahayn bahashii aflaaqada nafaqadii aflaaqada timaha ka baabi'in laheeday haddana wax idin la wadaagayaa wixii aan ka sameeyay sidii aan u sameeyay daawasho wacan بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا له قال واد سلامي دمان انتو كحرن جانل كارين قرحين waxa idin leeyahay ku soo dhawaada janalka Karin Qurxin maanta maxay idin la wadaagaysaa Karin Qurxin waxay idin la wadaagaysaa wax dabiici ah waxa soo ah jilciso iyo nafaqo midaasoo haddii aad isticmaashid timahaada inay dheereyso dhabarka dhaafiso dhulka gaarsiiso hadda dharirkooda iyo quruxdooda iyo bilicdooda iyo xariirtoodana aad arki doontid ee isticmaal insha Allah halkan waxaan ku haystaa hal koobkaasoo koobka shaax lagu cabo oo bariis ah waxa kale toon haystaa saliida oliifta macsar waa isticmaali kartaa waxa kale toon haystaa hal xabo iyo half moos ah waxa kale toon haystaa hal xabo ukun ah iyo liima dhanaan intaas ayaan rabnaa inaan ka suubsano nafaqo dabiici ah midaasoo haddii aad timahaada marisid isla markiiba aad dareemaysid inay dheer ay kuu noqdeen kala bixeen yacni sida jilcisadii oo kale dadka jilcisada marsan jiray ayaa yaqaan markii jilcisada timaha la mariyo waxaad dareemaysaa inay timihii ay taagmeen sida laasjiigii oo kale ee kala bixeen ama la fooneeyo waa sidaasoo kaleento ayay u kala bixinaysaa si degdeg ah waxayna leedahay nafaqooyin fara badan hadda haddii aad muxuu inta dad badan tihiin 4 qof ilaa 5 qof ayaa intaa isticmaali kartaa haddana muxuu ahayn dad koobkan bariiska ayaan soo karinaya markii aan soo kariyo ayaan isku soo noqonaynaa koobkii bariiska ahaa markii aan soo kariyay oo aan dabka 20 daqiiqo ayaan ku kariyo biyo badan aan ku kariyay oo bariiska oo ii soo jilca sidaas oo jido jile ayuu ii noqday intaan ayuu noqday aad iyo aad ayuu u farabatay haddii aad 5 qof ilaa 4 qof tahay ayaa hal koob ka dhigan kartaa hal qof haddii aad tahana 2 macalgo 3 macalgo macalgada yar ee cuntada lagu cuno ah ayaa kugu filan bariiskan haddii aad timahaada u isticmaashid uma baahnid nafaqo uma baahnid jilciso uma inaad dhahdid maxaa timaha mariyaa maxaa timaha ii bixin karo tijaabi 3 isbuuc oo kaliya kadibna wixii natiijo ah halkan ayaan kaaga sugayaa biidnillaahi alkariim marka bariiska maxaa rabaa sidee nafaqo ama jilciso uga dhiganaya marka hore waxaan soo qaadanayaa galaaska waxa lagu shiido blenderka kadibna markii aan soo qaato maxaan ku shubayaa bariiskii ayaan ku shubayaa bariiska oo dhan bariiskana waxaa la rabaa inuu qoyaan leeyahay yuu kaa qalalin yuuna kaa gubanin waxaa la rabaa inuu biyihiisa isku safiican ee isugu bislaadaan markii aan bariiskii halkan aan kusoo shubtay oo aan blenderkii aan kusoo shubo wuxuuba noqdayba yacni galaaska blenderka oo buuxa ayuu noqday waa hal koob oo koobka shaax lagu cabo bariis ayuu ahaa kadibna halka iyo jabkii mooska ahay ayaan ku darsaday markii aan ku darsaday kadib ayaan waxaan ku darayaa hal xabo oo ukun ah hal xabo oo ukun markii aan ku daray kadib waxaan ku darayaa jeexi liima dhanaan ah yacni liima dhanaantii soo kala gooy jeex ka mid laakiin labada jeexba waan ku wada shubanayaa markii aan intaas aan ku daro oo liima dhanaantii aan ku dhameeyo kadibna waxaan ku shubanayaa olive oil oo 5 macalga ah ayaan ku darayaa kadibna waan soo shiidayaa nala soco waan soo shiiday markii aan soo shiiday kadibna sidaas iyo igu soo baxday kareem dabiici ah hadda qurux badan maasha Allah yacni wax kuuskuus ah dhan malaha wax timaha kaaga hiraay malahan alaabtan waa sirta timaha bixisa hadda aniga ayaa idin haayo waa arkaysaan gabadheeda markii aan u marinay aniga waxaan soo galiyaa wax la hubo wax kasta oo waji ah iyo wax kasta oo yacni timaha bixiyo waa wax dabiici ah waa wax qurux ka dhigaayo waa wax adiga dhan ka dhigaayo ku dhahay hadii aad timahaada marstid dheerayn dhabarka ku gaarsiinay kaliya waxay u baahan inaa muddo 2 isbuuc 3 isbuuc aasiisid
kareemkii marka ama nafaqadii ama jilcisadii waa ujeedaa sidaas iyo inoogu soo baxday sidaas iyo isaga daba jiitamaysaa maxuu ahayd madaxaada ayaa marinaysaa 1 saac 2 saac ayaa u sugaysaa kadibna waa iska dhaqaysaa markii aad iska dhaqday kadib timihii waxa arkaysaa ku iska daba dhacdhacayo hadii ay gabdhahaada timaha ay isaga dhagaayeen haday timahaada aflaaqa lahaayeen hadii aad markaa timaha shanlada gelisidoo kaleento ee isqabsanayeen waxaas oo dhan wuu iska daynayaa hadii ay maxuu ahayd timaha ee tahay ilmaha timaha marka u shanleynaysid xanuuno waxaas oo dhan wuu ka dhaafayaa oo maxuu ahayd wuxuu leeyahay inuu timaha jilciyo maqaarka jilciyo timaha kaleento waa soo shanleynaysaa markii aad soo shanleysid timaha aan shanleysnaynin ha marinin waa soo shanleynaysaa timaha markii aan shanleeyo oo si fiican aan u shanleeyo kaleento ayaan rabaa inaan mariyo wuxuu aad iyo aad ka anfacaya markay timaha aflaaqa leeyihiin oo kale timaha qaybta horeeto markii ay ka adag yihiin ama ay ka soo baxayaan timaha waa aragta qaybaha hore oo kaleento inta badan way ka qalalaan qalaylka timaha ay ka qaadayaan agoolka ayuu ka qaadayaa maxuu timaha uu dheereynaya aflaaqada ayuu ka jaraya hadda maxuu ahayn dad markay tinta sidaas oo kaleento marka u shanleysid qaybta dambe ee shanlada u qabsato kaleento markii aad marisid alaabtan mac salaama ayaa isleedihiin waa isdaynaysaan timahada ama timaha gabdhahaadana intee dheereyso dhabarka dhaafis ay dhulka gaarsiinaysaa hadda waa wax la hubo waa wax dabiici hadda aniga waa u jeedaa mar walba waan u mariyaa timaha maasha Allah si fiican ayay ugu bixisay haddana maxay ka dhigaysaa oo kaaga tin xabad weyn ah oo aan go'aynin ayay ka dhigaysaa timaha haday jileec zaa'id ahaayeen waxa moodaa nuxur ayay siinaysaa haday timo adag lahaayeen way furfuraysaa yacni dhan walba way u wanaagsan tahay marka maxuu timihii ayaan soo marnaa markii aan soo mariyo kadibna qayb ayaan u kala furayaa markii aan kala furay ilaa lafta sida u jeedidoo kaleenta ayaan u kala furaya qayb waliba markeeda ayaa marinayaa markii aan mariyo kadib haddana maxaan suubinaa si fiican ayaan u marinayaa timihii maxaa ahayd qaybtii horo qaybtii dambo كل أيام مرنا كدبنا محاضرين ميسا إسلام مركي إنه تميه فيرسمين يعني سيدي إنا مريسايو كالينتو إن جيل عصو مركي تماه لمريو وحمودا إنه تميه ديرانا يعني إنكستي إيسان ديرانين لكن هادنا وفيدين إيسا تميه أيا كالبحايو إسلام مركي أيا وحاضرين ميسا ألابتان إنه تميه كو كالبحيسي إنه تميه ما شاء الله جيلي عديقا مانطق وحاس لها تنتي اسكتها تابا يعني مانطق ندوب يعني عنوك حتى مركا أمرنا يسيد عديقا وبقايبو تميه وأجيدا إسلا مركي سيداس أي أديريسي وكلا بحيسي وفيريسي مركا وحا إذن لايح ومباهند فونية ومباهند نفاق كيميكا ومباهند محو أهنتو jilciso alaabtan haddii aad maanta ay ku soo gaarto maalin kaleento oo aad marsatid yacni uma baahanaysid nafaqo jilciso maxaa timaha mariyaa timaha iga gurmay timaha iga daatay ayaa nagu badatay marka waxaan idleen insha Allah fadlan haddii ay tamarku horeyso aad soo booqatid channelka kan qurxin subscribe u sii share garay asxaabtada waxaan idin ka tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh